kulanka lagu taageerayay heshiis ay hore u wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo ururka shaqaalaha adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. heshiiskaasi oo ka koobnaa 3 qodob ayaa waxaa kamid ahaa in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. kulankan taageerada ayaa waxaa soo qabanqaabiyay rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo marjaraf kale. Maxamed Abuukar Zubeer oo ah gudoomiyaha xiriirka ururka shaqaalaha Soomaaliyeed ayaa ku booriyay dawladda Soomaaliya heshiiska ay la gashay ururka shaqaalaha adduunka. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan shirkan aan qabanayno ku soo dhaweynayno heshiiskii ka dhacay Geneva 20 Maarso 2014 oo aan lagu kala qaybsanayn oo ay joogaan dhammaan ururada shaqaalaha matalaya xubnihii affiliates ka tirsanaa ururadaas oo kala ah xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed iyo isu taga ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed oo shirkani si jointly ama wadajir u qabanayo dhinaca kale oo ah loo shaqeeyihii unugii matalaya loo shaqeeyaha oo ah rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed. xawiyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nasaja Maxamed Ibrahim Pakistan ayaa sheegay in heshiiskaasi ay faa'iido badan ka dhaxli doonaan shacabka Soomaaliyeed. maanta heshiiskan wax weyn ayuu ka tari doonaa in qof walba oo shaqaale ah ama ha noqdo saxafi ama ha noqdo xamaali oo maartay procedure cusub ay man doonaan oo maartay xuquuqdooda lagu difaacayo isla mar ahaantaana maartay qofkii shaqada hadii la shaqaalaysiiyana ay sida hadda uu sheegay cabdi ay adkaan doonto xitaa in shaqada laga qaado uu yeelan doono meel oo reference u dacwad tago. gabagabadii munaasabadii lagu taageerayay heshiiskii ay hore u wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo ururka shaqaalaha adduunka ayaa waxaa soo xiray agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed mudane Cabdi Bashiir Dhoore ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ahmiyad weyn ugu fadhiso heshiiskaasi loona baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga oo ay soo hoysay dawladda Soomaaliya. waxaan rabay kaliya inaan cadeeyo laba arrin oo runtii aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeedna mustaqbalkooda wax ka bedeli doona xuquuqsiinta dadka shaqaalaha ah ama abaabulidda iyo ururinta dadka shaqaalaha ah macno weyn bay ugu fadhidaa dunida hadda maanta aan ku noolnahay xuquuqdooda kaliya inay soo dhacsadaan maahane meel walba ay joogaan ayaga ayaa matala runtii isbedel weyn ku sameeya siyaasadda adduunka ka socota. 20 bishan Maarso ayaa heshiiskaasi ka kooban 3 qodob waxaa hore u wada saxiixday dawladda Soomaaliya iyo ururka shaqaalaha adduunka kaasi oo ka dhacay magaalada Geneva ee wadanka Switzerland. Cabdishkuur Ismaan Cali, telefishinka qaranka Soomaaliya, Muqdisho.